السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ku soo dhawaada mar kale iyo kororso aqoon channel oo aad ka barateen waxbarasho tayeysan casharka maanta waxa uu ku saabsan yahay chapterka saddexaad ee biology secondary form 1 casharkiisii labaad animal tissues waa nudayaasha laga helo xayawaanada waxaan ka soo hadalnay plant tissues iyo sida ay u qaybsamaan casharka maanta waxa uu ku saabsan yahay animal tissues waxa loo kala qaadaa four basic types afar nooc oo waxa weeyaan waaweyn oo asaasi ah epithelial tissue connective tissue muscle tissue nervous tissue nude laga helo epithelial tissue nude laga helo qaybta kore ee jirka noolaha iyo connective tissue nude وحريرية iyo muscle tissue iyo nude murqeed iyo nervous tissue nude dareenwad afartaas ayaa loo kala qaadaa animal tissueska maanta waxaan ku faaqideynaa casharkan epithelial tissue nudaha laga helo jirka korkiisa nudahan wuxuu saaran yahay oogada jirka ayuu saaran yahay waana qaybta kore ee jirka ayaa laga helaa nudayaasha ugu soo horeeyo jirka ayaa la yiraahdaa epithelial tissue epithelial tissues are widespread throughout the body jirka dhan way ku faafsan yihiin they form the covering of all body surfaces jirka oo dhan ay daboolayaan line the body cavities godadka jirka dhan ay waxa weeyaan ku leengareysan yihiin ay ku dhirirsan yihiin and hollow organs iyo xubnaha gudaha ay ku daboolan yihiin marka epithelial tissue waa nude oo dabool ah weeye jirka dhan ayuu daboolayaa xubnaha kuwa gudaha ku jira iyo godadka jirka oo dhan ayuu daboolayaa structural characteristics astaamaha qaab dhismeedkiisa saddex qaab ayuu waxa weeyaan uu u dhisan yahay are closely packed with no intercellular space in between aad iyo aad bay iskugu dhow yihiin wax space ah ma leh oo u dhaxeeya marka waa nudayaal isku dhagan weeye oo israacsan arise from a non-cellular basement membrane waxay ka soo dhashaan ay ka soo unkamaan xuub oo aan lahayn seelal ayay ka soo waxa weeyaan bilowdaan ayagu saddex not supplied with blood vessels ma lahan xididada dhiigga xididada dhiigga oo xidido dhiig ma leh function of epithelial tissues shaqooyinka ay qabtaan waa afar epithelial tissueska kow waxa weeyaan protection of the underlying tissues waxay ilaaliyaan nudayaasha ayaga ka hooseeya ay ilaaliyaan absorption nuugis ay qaabilsan yihiin waxay nuugaan wax alla wixii maqaarka oo jirka korkiisii la mariyo epithelial tissueska ayaa nuugayo secretion waxay qaabilsan yihiin in ay soo daayaan wax alla wixii jirka aan u baahnayn sida biyaha dheeriga cusbada dheeriga dhididka wixii la mid ah afar reception of sensory stimuli waxay qabtaan dareemaha waxyaabaha isbedelada ee dareenka ah ay qabtaan sida xanuunada qabowga kuleylka taabashada waxaas oo dhan waxay leeyihiin nervayaal oo sensory ah oo dareen qaada ah ay leeyihiin oo u gudbiya maskaxda iyo qaybaha kale ee jirka si hoos haddaynu u qaybino epithelial tissueska waxaa loo kala qaadaa ilaa iyo 5 qaybood ayaa loo kala qaadaa squamous epithelium cuboidal epithelium ciliated columnar epithelium brush bordered columnar epithelium afartaas loo kala qaadaa mid walba waynu ka hadlaynaa squamous epithelium structure qaab dhismeedkooda location meesha laga helo
function shaqada ay qabtaan baynu ka hadlaynaa squamous epithelium-ka waa flattened cells waa seelal fidsan weeye dhexdana waxay ka leeyihiin bu ay ka leeyihiin waxaa laga helaa inta badan air sacs in the lungs sambabada ayaa laga helaa gaar ahaan kiishashka oo hawada ku cabaysan lagu shubo ee sambabada laga helo ay ku langareysan yihiin waxaa kaloo laga helayaa squamous epithelium-ka kidney tubules tubooyinka yaryar ee kilidu ay leedahay ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa blood capillaries tiiftaafyada dhiigga ayaa laga helaa waxayna qabtaan shaqooyin badan kuwa laga helo sambabada kiishashkoodii waxa ay qabtaan exchange of oxygen and carbon dioxide isweydaarsiga hawada oxygen-ta iyo carbon dioxide-ka waa meesha oxygen-ta ay gasho kana baxdo way sambabada kuwa laga helo kiliyaha tubooyinkoodii ama dhuumankoodii yaryarka ah waxay shaqadoodu tahay absorption inay nuugaan wax nuugaan kuwa laga helo tiiftaafyada dhiigana shaqadoodu waxay tahay exchange of materials isweydaarsi walxo in la isweydaarsado cabodial epithelium qaabkoodu waxa weeyaan waa qaab waxay u samaysan yihiin cube like cells qaab waxa weeyaan cube oo kale u samaysan yihiin sawir ahaan nucleus bay leeyihiin seelashooduna way muuqanayaan ayagoo geesoolayaal ah waxaa laga helaa candhuufta ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helayaa tubooyinka oo pancreatic ducts ayaa laga helaa tubooyinka oo beeryarada waxaa kaloo laga helayaa dhididka ayaa laga helayaa waxaa kaloo laga helayaa qanjirada candhuufta soo saara ayaa laga helayaa waa cabodial epithelium-ka shaqadooduna waxay tahay absorption inay wax nuugaan secretion ay soo daayaan wax alla wixii markaasi ay soo saarayaan ciliated columnar epithelium waxay leeyihiin cilia timo yaryar ay leeyihiin ama duf ay leeyihiin tubooyinka yaryar ee keliyaha ayaa laga helaa kuwan shaqadoodan waxay tahay for flow of nephric filtrate waxay sifeeyaan keliyaha waxyaabaha socda oo dhan ay sifeynayaan columnar epithelium waa qaybta afraad waa kuwa dhaadheer qaab column oo kale u samaysan waa unugyo sidaas oo kale ah qaybta base-ka ah ay waxay ku leeyihiin nucleus bu inta badan waxaa laga helaa columnar epithelium-ka lining of stomach intestine waxay ku dheerarsan yihiin caloosha iyo mindhicirada ayaa laga helaa shaqada ay qabtaan waxa weeyaan secretion inay soo daayaan dheecaano and absorption iyo in ay nuugaan qodobka ugu dambeeya ama qaybta shanaad ee epithelium tissue loo qaado waa brush bordered columnar epithelium waxay leeyihiin way duuduuban yihiin duuduubnaan aada u badan ay leeyihiin mindhiciradana laga helaa kuwan waxayna kordhinayaan nuugista ay kordhinayaan haddii unugyada epithelium-ka laga helayo waxay yihiin lakabyadoodii kuwa hal xaba ah waxaa lagu magacaabaa simple epithelium ayaa la yidhaahdaa haddii unugyada ay ka kooban yihiin nodayaashanna ay u habaysan yihiin lakabyo tiro badan waxaa lagu magacaabaa compound epithelium waxaa ka mid ah maqaarka kuwa laga helo waxaa ka mid ah kuwa laga helo dhabanka kuwa laga helo iyo wixii la mid ah dhegaystayaal daawadayaal casharkeenii ku saabsanaa tissues gaar ahaan epithelium tissue halkaas ayaynu kusoo gabagabeyneynaa intaynu ku kulmi doonno cashar la mid a casharkan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan subscribe garey oo la wadaag walaalaha kale